Assalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada janalkeyga cunto karinta iyo macmacaanka ee Mema Cooking and Sweets. waa walaashiin Mema oo idiin wado muuqaal cusub iyo macmacaan aad iyo aad u dhadhan wanaagsan, aad iyo aadna u muuqaal wanaagsan. fadlan haddii aad janalka ku cusub tahay subscribe ii saar, ha ilmaamin inaad gambaleelka aad furato. haddii aad hore noola joogtana soo dhawow mar kale, share iyo like iyo comment waa inoo muhiim. waxaan idiin wadaa macmacaan aad iyo aad u dhadhan wanaagsan, aad iyo aad qurux badan. sida u jeedaanba waxaan arki kartaan quruxda uu leeyahay, dhadhankiisana aniga ayaa idinkaaga waramayo. run ahaantii macmacaankan ayaan kugu talagalay asxaabteyda qaaliga, inkastoo dhaawac yar uu iga soo gaaray oo xoogaa dhanka saliida ayaan ku gubtay, balse ii soo ducee insha Allah inuu ilaahay ii bogadhayo. wax walba waxaa waaye waa qadar, waana inaad ku sawirtaa wax alla wixii kugu dhaco, mana ahan haddii ay wax kugu dhacaan waxay aad sameynaysay inaad ka niyad jabto. alxamdulilah, taasna waan ku qanacsanahay. horena waan u soconaya, mar walbana muuqaalo cusub waan idiin soo gelinaya insha Allah, kamana daalayo. balse idinkana idhiirigeliya oo mar walbo inaa hore u socdo ka qayb qaata, waayo waxaad tihiin dadka aan mar walbo u dadaalayo inaan wax cusub aan u soo geliyo janalkeyga. taasna waxay ii noqonaysaa farxad haddii baan idinka dhiirigelin idinka haysto. wax walbo waa loo dul qaadan karaa, soo maahan. soo dhawaada. sida ujeedaanba waa kana macmacaankeena, waxaa ka dhigan kartaa casriyo, ayaad ka dhigan kartaa soonka haddii la gaaro insha Allah. xiliga afurkane waad ku darsan kartaa. quruxdiisane waa kaa, ani waana dhacay quruxdiisa iyo qaabkiisaba macmacaankan. idinkana waan rajeynayaa in aad iyo aad ula dhacdeen. korka waxaa ka muuqda waa sisinta waxay siinaysaa dhadhan wanaagsan, sidoo kale quruxna way siinaysaa. oo sida ujeedaanba quruxda ka muuqato sisinta ayaa ka qayb qaadanayso. midabkan waxaa waaye midab gaar ah aan u sameey waaye. marka hore burka aan qasaye waa arki doontaan qaabkii aan midabkan jaalaha ah aan ugu sameeyey macmacaankani. idinkana waad fahmi doontaan insha Allah. oo waxaa waaye muhiimadii aan usoo gelinayo ayaa waxa ay tahay wax walba oo aan sameynayo inaa step aa ula socotaan iyo wixii aan ka sameeyey aadna fahantaan. haddii aad ku qanacdaan idinkana sidaas oo kale inaa u sameysataan. macmacaanka waxaa waaye xiliga ramadaanka oo uu soo dhawayahay, ilaahay nabadha nagu gaarsiiyo. waan soo badinaya insha Allah waxyaabo badan oo macmacaan ah oo xiliyada casriyada ah iyo sidoo kale xiliga afurka, haddii aan ilaahay nabad nagu gaarsiiyo soonka aan aad iyo aad u isticmaali karno oo aan afur ka dhigan karno insha Allah. waan soo badinaya. idinkana waxaa waaye ka faa'iideysta oo mar walbo idhiirigeliya inaa hore u socdana ka qayb qaata. hadeerna waxaan idin tusinayaa qaabka aan u sameeyey iyo waxyaabihii aan ka sameeyey. isla socod wanaagsan asxaabteyda. marka hore soo diyaarso weel, kadibna waxaa waaye waa inaad diyaarsataa 2 bakeeri sokor, waa inaad ku shubtaa waka iyo 1 bakeeri oo biyo ah ayaad ku shubaysaa. waxaan rabaa inaan kariyo sokor, inaan kariyo oo aan diyaarsado ayaan rabaa si aan dhow macmacaanka u dhexgeliyo. way fahamteen oo maleynaa asxaabteyda. haddana dabka ayaan saaray sokortii waka. waxaan sugayaa in ay isoo karto. liin dhanaan ayaan ku darayaa. liin dhanaantana waxay shar jibinaysaa sokorta, waa sokortu way badan tahay. mar walbo liin dhanaan isticmaal sokorta si ay kaaga shar jibiso. dhadhankana way ka qayb qaadataa liin dhanaanta, waayo liin dhanaanta wax walbo way wanaagsan tahay. macmacaanada badan waa loo isticmaalaa liin dhanaanta. hadeerna way kareen, heel yar ayaan ku karsanayaa si caraf uu ii siiyo. caraftana waxaa waaye si hadhow waxay kasoo dhadhameysaa macmacaankeeni aan sameysanaynay. waxaan sugayaa inta ay iga soo karsamayaan biyaha. marka ay soo karsamaan kadib isla markii macmacaanka ma lagu dhex ridaayo, waa la qaboojinayaa. waayo markii aad qaboojisid xoogaa sokorta dhedhel kuma qaboobayso. qaboojis oo sokorta waxay haddii qabow zaid ka dhigtid way ka dhagaysaa, looma baahno. haddana waxaan sameysanayaa burkii aan qaslaa oo 2 bakeeri ah ayaan
qasanaya waan diyaarsanaya. Waxyaabahan ku daraya waa idin tusinaa. Waxaa kamid ah marka hore qaando oo waxaan ku daraa jiis ama farmaajo sida u taqaanaanba. Sidoo kale waxaan ku darayaa qaando oo subag ah ayaan ku darayaa. Saliid ma jecli inaan isticmaalo, subaga caraf ayuu ii siinaya macmacaanka. waxaan rabaa oo kale inaan ku daro wax yar oo cusbo yar oo dhadhan yeelayo. Sidoo kale qaando yar oo leebito ama fixiso sida u taqaanaan ayaan ku darayaa. waxaan kale ku darayaa cuntada kalarka lagu daro oo food color ah oo jaalo ah midabkiisa ayaan ku darayaa. hal qaando yar iyo bar ayaan kaga daray. Sidoo kale bakeeri biyo ayaan rabaa inaan ku qaso, laakiin tartiib ayaan ugu darsanaya. waayo waxaan rabaa burkeyga markii aan qasanayo in biyaha hal mar igaaga fakanin. biyo aan ku qasayo waa biyo qabow ah ma aha biyo kulul. burkaan markii sidaan loo sameynayo macmacaankan looguma talagelin in biyo diiran in lagu qaso. macmacaankan waxaa waaye biyo qabow ayaa ku qasaysaa markii aad rabto inaad sidaan aad u sameysato. markii aad qasaysidna aan hadda qaando ayaan ku qasaya sida u jeedaan. waa inaa aayar u qastaa, si aayar ah looma baahno si waali ah inaa u qastid. mana ahan macmacaan markii la qasayo la garaacayo, ma ahan. waa macmacaan markii la qasayo si tartiib ah loo qasayo oo si waali ah aysan ahayn ama garaacitaan uma baahno sida idin sheegayba. qasitaankiisa wuxuu u baahan yahay inaad ka taxadirtid. hadda wax yar biyo ayaan ku darayaa, tartiib ayaan ugu darayaa biyaha. haddii yacni ay igaaga yaraadaan oo aan dareemo midda xigta ukun uma baahna. sababta aan leebitada ugu darayna ma ahan inaan ku kiciyo kaliya, waa inay wax yar indha ii siiso. waa fahamteen oo maleynaa. adeeg ma ahan, ka ilaalino adeeg kaa noqo xaro. sidaas oo kale inuu u shubmaayo markii waayo markii la dubayo sidaas ayaa looga baahan yahay. macmacaankan adeeg loogama baahno, jilic saaid loogama baahno. kuley waa taqaanaa qaabka canjeerada oo kale markii aad rabto inaad dubto sidaas oo kale inuu noqdaa rabaa socodkiisa oo ma ahan adeeg loogama baahno. waa fahamteen oo maleynaya. waxaan soo diyaarsaday bacbacle aan rabo in aan ku dubo. afka ayaan rabaa inaan ka jarto. waan ku shubayaa burka ayaan ku shubayaa, hadhowdina waan ka dubanaa. hadda waa kaasa waan soo jartay sida u jeedaanba. burkii ayaan rabaa marka inaan ku shubo. waa kaa waan ku shubay oo waxaan rabaa inaan dubo. waxaan daartay kuukarka. marka hore saliid waxaan rabaa xoogaa inay zaaid igu soo karkarto, kadib waan ka gaabinayaa kuukarka. waxa kaloo ii diyaarsan sisintii aan korka uga qurxinayay macmacaankii sida u jeedaanba. waa ka kuukarkii waan ka gaabiyey oo waan ku celiyay saliida. markaan waxaan rabaa inaan bilaabo qaabka u dubay bacbaclaha. waa ku warwareejinaysaa macmacaanka markii aad rabto inaad dubto, ama sida canjeerada oo kale ayaad kula duban kartaa oo qaabkaas ayaad ka dhigan kartaa wax yar oonan ka badnaynin. balse xabadan ugu horeys waxaa waaye aniga iskale soomaan dhadhankeeda iyo qaabka ay kusoo baxda tijaaba la dhahaa, tijaabo ma fahamteen. marka waa ka maasha Allah. waxaan idin tusinayaa qaabkan u dubaayo. waa ka sida canjeerada oo kale ayaad u warwareejinaysaa, wax dhibaato ah malahan. aan hadda 3 xabo ayaan hal mar ku riday. hadba waa inta uu ku qaado weelka wax ku dubaysid. sisinta ayaan rabaa inaan kor uga shubo si ay ii siiso qurux oo waxaa waaye iyo dhadhan wanaagsan. sidaas ayaana sisinta korka wax yar uga shubanaysaa adiga oo ku shubaya macmacaanka sameynaysa korkiisa. hadeerna waxaan rabaa inaan ka saaro waayo asaga ma u adkeysan karo dab badan. waxaana ku riday sokortii oo aan gelgeliyay labada dhinacba waana ka soo saaray. sida hadeer aan u jeedaan weelkii ii diyaarsanaa ayaanan ku ritay macmacaankeeni. sidaas ayuuna ku soo baxay quruxda badan oo aad u jeedaan. mar walba aad dubanaysidna waa ka sokortana gadaal ayaa uga ridaysaa. macmacaankeeni hadeerna saxan ayaan ku soo ridanay oo waxa kaliya u haray waa cunis. aad iyo aad ayuu macaan badan yahay una dhadhan wanaagsan yahay maasha Allah. waa kaaliska arag lagama sheekan karo markii aad macmacaan sidaan oo kale u sameysatid. quruxdiisa iyo dhadhankiisa casri ahaan waad u isticmaali kartaa. hadee marti ku imaadana waad sameyn kartaa. mana dhib badna oo iska fudud yahay. kaliya waxay ku xiran tahay inaad fahamto qaabka u sameysan lahayd. waa ka hadee sisintiina way ka muuqataa quruxdeeda iyo dhadhan ahaan markii aad cunaysidna way ku soo dhadhameysaa macaanteeda. run ahaantii aniga ahaanteeda waan ka helay. idinkana asxaabteeda qaaliga waxaa rajaynayaa inaad ka
hesheen. Sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad channelkayga cunto karinta iyo macmacaanka ee Mema Cooking and Sweeties inaad subscribe ii saartaan, inaad run ahaantii ay gaarsiisaan meel wanaagsan ayaan ka filayaa. taasna waxaa u tihiin Soomaali oo waxaa waaye maasha Allah mar walbo dadkeena way iska rab qabtaan. taasna waan ku faraxsanahay markaan arko dad cadaan ah oo intaas oo milyan maraayo jannaladooda cunto karinta. run ahaantii aad iyo aad ayaan waxaan isku dhahaa adigana goormeed gaari doontaa maalintaas. laakiin mar walba waxaan ogaa inay dad wanaagsan iga dambeeyaan idinkoo kale. fadlan kor ii soo qaada haddee taasna waxaa waaye leenkaagama sheekeenaayo. yaa ujeedaan alaabtan la soo diyaarinayo oo macmacaanka iska soo daba dhacay iyo cunooyinka iska soo daba dhacay idinka dartiina loo soo gelinayo channelka, ma fahamteen yaa intaasna waxay iskeed xoogaa isxasuusin inaa gabadhiina kor u soo qaadaan oo kala kicisaan. maasha Allah taasna waan idinka filayaa dhowr marna waan idin iri. aad iyo aadna waad u mahadsantiin. macmacaankeeniina waa ka bogasho wacan muuqaal ahaantiisa macaan ahaantiisa iyo dhadhankiisa mar walbana waad ka heli doontaan. ha iloobina mar walbo in Instagram-kayga aad igala socotaan iyo sidoo kale social media way badan yihiin, laakiin halkan ayaan idinkugu soo qorayaa sawiradooda dhammaantoodaba. insha Allah waxaan rajeynayaa idinkana inaa mar walbo ay ila socon doontiin hadduu alla idmo. taasna waan idinka filayaa aad iyo aad. waliba waxaa waaye warna idinkuma dheereenaayo dadkaygiyo waxaan idin leeyahay horay noo wada insha Allah mar walba iyo meel kastaba. okay waan idinkaga mahadcelinayaa qaabka wacan aad u daawanayseen muuqaalkaygii ku saabsanaa macmacaankii aan idin soo diyaariyay. idinkana waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen macmacaankan, laakiin waxaan rabaa inaan mid idin xasuusiyo. maalin ka hor ayaan diyaariyay maanta kulabo waaye waxoogaa waan yara gubtay sida idin sheegay. maanta ayaan fursad u helay inaan channelka idin soo geliyo. insha Allah ii soo duceeyo mar walbo inuu Ilaahay caafimaad ii siiyo. halka aan ka dareemayo gubashada iyo sidoo kale wax walba aan jeclahay inuu Ilaahay ii sahlo. idinkana muraadka aad leedihiin Allah idin sahlo. waan idin soo duceynayaa dhammaantiinaba. aad iyo aad u mahadsantihiin. isla socod wanaagsan. waa mar kale iyo mar kale. waa inoo muuqaalada xiga ee aanan ka dhicin. cunno ka macaan badan, ka qurux badan, ka tiro badan maa la dhihi jiray. mac salaama ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. subscribe ka ilaawina.